straight line method. So straight line method, under this method, annual depreciation is worked out by dividing the total depreciable value of the asset by its expected life in year. So this method is محولها مركا si loo helo depreciation cost per year waa per year waaya per year annual depreciation cost si loo helo maxaan sameynaynaa total depreciable value ga ayaa waxaan u qaybinaynaa expected life ka depreciable value waa maxay waa inta la rabo in marka la rabo in qiimo dhaca waa inta qiimo dhaca uu sameynayo machine-ka kaasa waxaa la yiraahdaa waa depreciable value macnaheedu waa maxay machine-kan anaga waxaan ka soo bixinay 10,000 waxaa loogu talagalay 10 sano in la isticmaalo after 10 years machine-kan wuxuu noo gooyay lacag $3,000 it means 3,000 markuu noo goonayo machine-kan inta in leg ayuu qiimo dhac uu sameeyay qiimihiis inta in leg uu isdhimay marka horena 10,000 aan ka soo bixinay haddana 3,000 uu joogaa qiimaha imisoo isdhimay 7,000 soo maaha 7,000 kuna waxaa la yiraahdaa depreciable value waa intuu isdhimay machine-kan ama asset-kan intuu isdhimay ayaa waxaa la yiraahdaa waa depreciable value yani machine-kan ama asset-kan intee in leg ayuu qiimihiisa isdhimay waxaa noo soo baxay depreciable value so depreciable value marka maxaan ku helaynaa total value-ga oo machine-ka inta laga soo bixiyay ayaa waxaan ka jaraynaa waxa la yiraahdaa chunk value waxaa la yiraahdaa machine-kan markii aan rabno inaan iska gadno ama markii aan rabno inaan iska xaraashno qiimaha uu marka uu noo gooynayo ama qiimaha uu marka aan siisanayno ayaa waxaa la yiraahdaa chunk value-na waa la yiraahdaa sidoo kale waxaa la yiraahdaa salvage value waa la yiraahdaa scribe value waa la yiraahdaa saddexdaba waa loo isticmaalaa qaarkood waxay qoraan residual value afartaba waa la isticmaalaa marka residual value dheh ama chunk value dheh ama scribe value dheh ama salvage value dheh muhiimadda waa maxay machine-kan markuu datekiisa uu dhamaado oo aan rabno inaan iska xaraashno si aan mid cusub aan ugu soo bedelo qiimaha uu marka uu noo goonayo ayaa waxaa la yiraahdaa chunk value so depreciable value maxaan ku helaynaa total value ga waxaan ka jaraynaa chunk value gaan ka jaraynaa maxaa noo soo baxay amount of depreciable noo soo baxay inta uu hoos dhaca uu sameeyay ayaa noo soo baxay so marka totally maxaa leenahay marka formalkaana isticmaalayna depreciation per year maxaan ku helaynaa waa depreciable value ga oo loo qeybiyo useful life ka sida qaacidada uu sheegay waa depreciable value ga oo loo qeybiyay expected life ka soo ma ahayn so waa depreciable value ga oo loo qeybiyay useful life ka depreciable value ga maxaan ku helaynaa marka waa total value ga oo laga jaray chunk value yani total value ga qiimaha laga soo bixiyay machine-kan ayaa waxaan ka jaraynaa markii waqtigiisa uu dhamaado qiimaha anaga aan ku gadayno machine-kaas markii aan kala jarno labadoodii waxaan noo soo baxay depreciable value ga noo soo baxay so depreciable value ga noo soo baxa maxaan u qaybinaynaa machine-kan meeqa sana la isticmaali karaa ma 10 sana ma 9 sana ma 12 sana meeqa sana ka faa'iideysanaynaa meeqa sana isticmaali karnaa ayaa u qaybinaynaa waxaan noo soo baxay sanadkii machine-kan meeqa u dhignaa sanadkii ayaa noo soo baxay example-kan aan isla fiirina marka so marka in this case maxaan assume garanaynaa the rate inuu constant yahay that's why maxaan noo soo baxay depreciation under this method remains the same over all the year inta muhiim waa hoos ka xariiq marka so depreciation marka la isticmaalay straight line method marka la isticmaalay the depreciation cost mar walba muxuu ahaanaa the same all the year sanad walba tusaale ahaan markii labada aan kala jarno oo aan u qaybino the number of years aan u qaybino for example waxaa noo soo baxay lacag $2,000 so sanad walba macnaheedu waa maxay $2,000 aan meel dhigaynaa waa isma bedelayo marba haddii la isticmaalayo this method la isticmaalayo the annual depreciation will be the same it will not change decrease ma sameynayo increase kuma dhacay it will be the same intii soo ahaanaya isma bedelayo so marka mar walba maxaa leenahay marka maxaan jaraynaa every time ama mar walba maxaa leenahay waxaan jaraynaa 2,000 sanadka 2,000 sanadka 2,000 sanadka that's why muxuu ku leeyahay marka marba haddii depreciation methods-ka noocaan la isticmaalayo the depreciation cost maxaa leenahay remain the same over all the year example-kan aan isla fiirino marka suppose the useful life of a tractor which is budgeted for 84,000 is 10 years يعني machine oo tractor la soo gaday ama cagaf aan soo gadnay useful life kiisi
ayaa wuxuu ahaa 10 sano mashiinkaasoo qiimihiisu uu yahay 84,000 markaan soo gadayna waxaan ka soo bixinay 84,000 aan ka soo bixinay useful lifekiisa inta sano la isticmaali kara mashiinka waa 10 years waay it is value at the end of the 10 years marka 10 sano marka la dhaafo kadib ama la gaaro ama ay dhamaato qiimaha changa value wuxuu noqonayaa ama mashiinka wuxuu noo geelayaa ama waxaan nagala siin doonaa lacag gaaraysa 4,000 so waxaana loo diray marka inaan xisaabino annual depreciation cost waa imisa so the annual depreciation cost maxaa leenahay waa total value-ga oo 84,000 oo laga jaray the changa value ama the salvage value ama the scribe value ama the residual value magaca arabta u bixi ayaan kala jaraynaa maxaan u qaybinaynaa the useful life-ka oo 10 years-ka so marka 84,000 oo laga jaray 4,000 waxaan noo soo baxaya 80,000 soo ma 80,000 maxaan u qaybinaynaa 10 years 10 sano u qaybinaynaa maxaan noo soo baxaya 8,000 aan haynaa so this method is very simple and easy to understand marka waa ka fududyahay midka hore oo price change waa ka fududyahay waa very simple waay aad loo xisaabin karaa that's what the annual depreciation cost marka by using the straight line methods marka la isticmaalayo this formula isticmaalena this formula aan isticmaalena so maxaa leenahay annual depreciation cost will be equal depreciable value oo loo qaybiyo useful life which is equal depreciable value maxaan ku helaynaa waa total value oo laga jaray the changa value oo loo qaybiyo the useful life in year kadib maxaa noo soo baxay annual depreciation ka noo soo baxay misla fahanay